dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa 6 carruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqi area-daas mar kale haddana Somtal iyo Hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynayna waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dawladda Kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ay ku soo wargelin dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud AMISOM ma fulin karaan wax duqeyn kuma soo xadgudbi karaan xuduud taas wata magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxa kamid ah Ceelwaaq waxa kamid ah Ceelcadde waxa kamid ah Cawsqurun waxa kamid ah Dhadhaable xuduudaha waa garanaysan magaalooyinkaas u dhow gobolka Gado xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeelay aad baan u cambaaraynayna waana ka xunahay waana u tacsiideynaa intii gooriyootay dhaawiciina wuxuu inoo jiifaa carruurtii isbitaalada ilaahay inuu boogeedhayo ayaan ilaahay weydiinaya qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan sida la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu diraa intii dawlad dhiska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas u socday dalal badan ayaa ciidamada tababaray oo inuga mahad celinayna qaarna ilaa hadda ay loo tababaraan qaarna mustaqbalkeenu rajaynayna inay noo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof fara majuura qangaara go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isaga ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho dhalinyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynayna inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda laga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuun bay la yihiin arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamada inoogu maqan yihiin Eritrea ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaan ma jiro laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadi bari dhaweydun bay ahayd markii la isku haystay xeebta Liido lahaa ciidamada Ethiopia xeebta Liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya ay Tigray qabsan ma jirto ciidamada Ethiopia waa ku filan taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo وما مركي كواد إنه وركها مقلي وهم مركي سجالات وهم مركي طبنات مركز تنا وحين نقطة وحبك مترين هو اللي وجاده صوت هيدتكو وهيوم بين وبنات سياسيين الدنيا كما هالله تبى هذا عيد مدو صوته والسرقة نوع الله تبى بريو أنت الله تبى بريو قابك الله تبى بريو وحيكون شرته حكته ذلك لما تعرفك لكن سياسيين تاني واحد مودع إلى أجندة دور الشكل دكتين كان بين دور الشكل دكتين ويكون سعود علينا صعب والله وحنا أركي والله بينك صعب توما يسمى كوحد صعب كم حاجة بينك الله توما دان حيل دي كتشري
arrimaha dhacaya carruurta la leynayo xadgudubyada Kenya weli ma aragtaan hal siyaasi oo ka hadlay hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan carruurta maxaa loo dhaawacaya maxaa loo duqeynaya maxaa loo burburinaya hormuud laga rabaa maalin walba maxaa sababta loo ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan